sidii siin bogtiin talay Mustafa wali kuma tahay saraakiisha firfircoon oo ciidanka dawladda koonfur galbeed muddooyinkii la dhaafay shaqeeyay iyo kuma tahay hadda naftarsha Baydhabo roog shaqale ka jarilan oo isku magacayn ciidanka mahadnagaan in shaqooyinka qurux badan ay gudaha ku qabday iyo in geeka ciidan shay safkaha la galo xoreynta salbilaartu walaalka xoreeyaa inuu sagiibtis ku qaado warshaha qaaday ciidanka mahadnagaan wasiirka amniga koonfur galbeed ee garabka lafta gareen oo sheegay in aadan madoobe iyo kooxdiisa ay ka taqalusayaan taliyaha ciidamada airportka Shaati Guduud oo fariin culus u diray Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa aadan madoobe oo wax taageero ah iyo soo dhaweyn aan kala kulmin dadweynaha reer koonfur galbeed qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka oo inta badan ka daawataan Wama TV fadlan daawada hadaa ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar facebookna noo follow garee wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed ee garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee lagu magacaabo Xasan Cabdiqaadir oo ay weheliyaan afayeenka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan iyo xildhibaan Cabdiwahaab Macalin Salaad ayaa magaalada Baydhabo duleedkeeda si diiran ugu soo dhaweeyay taliyaha airportka magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Mustafa Maxamed Qomaal iyo ciidamo uu hogaaminayo oo ku biiray ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen kuwaasi oo ay tilmaameen inay ka qayb qaadan doonaan halganka dib u xoreynta koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyiintan ayaa sheegay in ku biirista taliyaha ciidamadu ay ka turjumayso taageerada sii kordhaysa ee ay helayaan ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo isla markaana ay xoojin doonaan qorshayaasha la xiriira dhinaca amniga iyo waliba mustaqbalka siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed waxay sidoo kale bogaadiyeen go'aanka ay ku qaateen ciidamadaasi in ay ku biiraan ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyagoo tilmaamay in ay muujiyeen niyad wanaag wasiirka amniga koonfur galbeed ee dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa munaasabada soo dhaweynta ka jeediyay hadal uu si adag ugu dhaliilay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo loo doortay hoggaanka koonfur galbeed isagoo ku eedeeyay in uu matalo danaha siyaasadeed ee madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud sida ugu dhaqsaha badan ay isaga iyo kooxda uu watay ee koonfur galbeed jooga ay meesha uga saari doonaan wasiirka ayaa sheegay in aadan madoobe uusan maalin rabitaan guud ee shacabka koonfur galbeed uusan ku joogin magaalada Baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed balse uu yahay wakiilka xisbiga madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ee muddaxileedkiisu dhamaaday iyo xisbiga JSP hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli ay wali taagan yihiin doodo siyaasadeed iyo loolan siyaasadeed oo ka jira koonfur galbeed kuwaasi oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka hoggaanka siyaasadda iyo jihada maamulka koonfur galbeed mustaqbalkiisu oo u dhaqaaqi doono mas'uuliyiinta ka hadashay munaasabadan ayaa ku celcelinayay in ay sii wadi doonaan dadaaladooda ay ku doonayaan in ay ku mideeyaan ciidamada iyo bulshada taageersan aragtidooda sidii siin bogtiin talay Mustafa wali kuma tahay saraakiisha firfircoon oo ciidanka dawladda koonfur galbeed muddooyinkii la dhaafay shaqeeyay iyo kuma tahay hadda naftarsha Baydhabo roog shaqale ka jarilan oo isku magacayn ciidanka mahadnagaan in shaqooyinka qurux badan ay gudaha ku qabday iyo in geeka ciidan shay safkaha la galo xoreynta salbilaartu walaalka xoreeyaa inuu sagiibtis ku qaado warshaha qaaday ciidanka mahadnagaan tali Mustafa wali kala hadawaa ciidankii ka hadawaa wali kala duleedka magaalada Baydhabo oo runtii hadda taliska howlgalada si ku meel gaar ah ka hadawaa faahfaahin badan hanuun muqoosiyano adiba ku warhaytay ciidanka iyo operationska hata la ka jaro wala Baydhabo taalan walaayada hata habsabtiya adiba og saraakiil fara badan oo qiimo badan oo wali magaalada gudaasha ka jaro yoona wali lana hadawaada ha ku qiibnagada howlgalkaas magaalada Baydhabo magaalo wali haytay degan nabad cadaalad ku jarto oo shaqo fayl ku socoto amni ku jaro yahayti geekana wali ogtiina shalay shaleedii habadooga la ridaay magaaladaas la ridaay intuu qof in ku badan ka dhaawacmeen dad sidoo qof ku badan ka dhimadaan sidoo uu xogoonanaysay nasiib daro wiigu oo eedan wiin oo dadka reer koonfur galbeed ka habsidayo dadkii ku dul qaadan lahaayeen ciidan oo sugahaayeen ciidankan dawladda koonfur galbeed wali ogtiina maalan cad in dad la dhacahayo wali ogtiina waxyaabo fara badan oo hata in media hata la ku sheegan faylahayn in magaalada Baydhabo ka socoto laakiin dadka diiday doorkan galay gorishoon qaaday ciidanka dawladda koonfur galbeed ilaahay idin sheegay inuu ka do'ayna wali rajeene sidanka dhaqsiya badan in shacabka reer koonfur galbeed nasdaan
taliyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo Gaashaanle Mustafa Maxamed Qomaal ayaa isaguna hadal kulul oo siyaasadeed wuxuu ka jeediyay munaasabada lagu soo dhaweynayay isaga iyo ciidamadii uu hogaaminayay kuwaasi oo ku biiray ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee dib u xoreynta Koonfur Galbeed. Taliyaha ayaa si adag u dhaliilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba siyaasadiisa ku aadan deegaanada Koonfur Galbeed. Mustafa Maxamed Qomaal ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud Koonfur Galbeed uu la yimi arrimo iyo siyaasado uu ku guul daraystay inuu ka hirgeliyo deegaanada kale ee taageerada uu ku leeyahay isagoo ku eedeeyay inuu isku dayayo inuu saameyn uu ku yeesho jihada siyaasadda ee maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha ayaa sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay si wanaagsan uga warqabaan xaaladda jirta isla markaana aysan aqbali doonin wax kasta oo uu ku tilmaamay faragelin siyaasadeed oo dibadda looga keeno. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka iyo ciidamada reer Koonfur Galbeed ay leeyihiin awood iyo karti ay ku difaacaan masiirkooda siyaasadeed isagoo xusay in loo baahan yahay in midnimo iyo wadajir looga hortago wax uu ku tilmaamay inay isku dayayaan inay wiiqaan rabitaanka shacabka deegaanka. waxa uu carabka ku adkeeyay in ciidamada uu hogaaminayo ay garab istaagi doonaan dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida Koonfur Galbeed isla markaana uu door muuqda ka qaadan doono arrimaha la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed iyo in dib loogu soo celiyo gacanta Koonfur Galbeed maamulkii horey u maamulayay iyo waliba Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxa uu sidoo kale fariin adag u diray Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo uu ku sheegay inuu yahay horgal dhalay oo aan lahayn karti iyo waliba dadnimo uu wax ugu qaban karo dadka reer Koonfur Galbeed. hadalka Gaashaanle Mustafa Maxamed Qomaal ayaa ku soo beegmaya xilli ay si xoogaysanayaan hadallada iskhilaafsan ee ka dhex aloosan dhinacyada siyaasadda Koonfur Galbeed iyadoo arrimaha doorashooyinka iyo hoggaanka la isku hayo iyadoo maamulku uu wali yahay kuwa si weyn loogu kala aragti duwan yahay iyo waliba doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo. hadalkiisa ayaa sidoo kale muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay loolanka dhinaca siyaasadda ee ka jira deegaanka kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay yeeshay wajiyo kala duwan oo ay ku jiraan eedeymo cusub iyo dhaliilo ay isweydaarsanayaan dhinacyada iska soo horjeeda. waxaa horumar laga sameeyay dadaalo dhexdhexaadin ah oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya kaasi oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiga. ilo xooggaala ayaa sheegay in 24kii saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen kulamo gaar ah oo dhexmarayay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka. mas'uuliyiinta mucaaradka ee la kulmay Mahad Salaad ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. kulamada ayaa diiradda waxaa lagu saaray xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho iyo sidii loo xoojin lahaa wada hadallada siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka. wararka laga helaya ayaa tilmaamaya in dhinacyadu ay isla qaateen qodobo muhiim ah oo ku saabsan sugidda amniga caasimadda iyo ka fogaanshaha tallaabo kasta oo keeni karta xiisad siyaasadeed iyo khalkhal amni iyadoo sidoo kalena la sii ambaqaadayo dadaalada lagu raadinayo is-afgarad siyaasadeed. kulamadan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ay ka jirto marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah iyadoo dadaalo socda ay jiraan oo lagu doonayo in lagu helo jawi deganaanshiyo isfahan u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo si toos ah aad uga daawanayseen Waama TV. fadlan daawada haddaa ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like garay oo share garay mahadsanidin.